madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maantay xafiiskiisa waraaqaha aqoonsiga danjiranimo kaga gudoomay safiirka cusub ee dowladda Finland u soo magacawday gudaha dalka Soomaaliya iyadoona dowladaha Soomaaliya iyo Finland uu ka dhaxeeyay xiriir aad u qoto dheer safiirka cusub ee dowladda Finland ee soo magacawday Soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u gudbiyay salaan ugu waday madaxweynaha dalkaasi Finland xoghaye Saciid Xaaji Maxamed ayaa waxa uu warbaahinta ugu warbixiyay qodobadii ay la meeldhigeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo safiirka cusub ee dowladda Finland u soo magacawday gudaha dalka Soomaaliya danjiraha cusub ee dowladda Finland waanu saaxiib ka nahay wuxuu ka gadoomiyay waraaqihiisii aqoonsiga sida laga warqabana Finland waxaan lahayn xiriir dheer markaas waxa laga wada hadlay sidii xiriirkii hore uu jiri jiray loo soo cusboonaysiiyo loo xoojiyo Soomaaliya iyo Finland sida laga warqabo Finland waxay naga caawisaa xagga caafimaadka xagga tacliinta iyo waxbarashada iyo xagga muxuu ahaa horukacada marka sidii loo dardargelin lahaa muxuu ahaa iskaashiga sidii loo horumarin lahaa marka intaas laga wada hadlay Mustafa Xasan Cabdi wararka TV-ga STN magaalada Muqdisho.